Bismillahirrahmanirrahiim. Dhammaan asxaabtayda ku xiran janaalka meel walbo aad dunida ka joogtaan waxaan idin leeyahay isku soo noqod wanaagsan. Maasha Allah. Waxaynu bilaabanayo casharadeenii taxanaha. Fadlan haddaad nagu cusub tahay saaxiib janaalka subscribe inoo dheh, like-tan ku qabo videoga, commentiga noo reeb fikirkaaga. Mahadsanid. Okay. Waxa inoo bilaabanayo casharadeenii taxanaha ahaa oo aan ku qaadaneynin luqadda Turkiga, Turkish casharkii 6 aan ku dul istaagayno oo aan ku baran doono kalarada iyo jumlooyin aan gelin doono iyo qaybtii 3aad ee xisaabaadkii noo socday. Haddaba let's go aan bilaabno casharadeenii. Kirmizi micnaheedu waa gaduud amba casaan sidaad u taqaanid. Kirmizi Çiçek çok güzel. Kelimesi çiçek çok güzel. Ubaxa casaanka ah aad buu u qurux badan yahay. Kirmizi micnaheedu waa casaan amba gaduud. Çiçek micnaheedu waa ubax. Çok micnaheedu waa aad. Güzel micnaheeduna waa qurux. Mavi buluug. Mavi waxaa loola jeedaa kalarka buluuga. Mavi bir kelimin var. Mavi bir kelimin var. Waxaan haystaa hal qalin buluug ah. Mavi micnaheedu waa buluug. Bir micnaheedu waa kow. Kelimim micnaheedu waa qalinkeyga. Ayam haddii raacdo qalinkeyga loola jeedaa. Var micnaheedu waan haystaa waaye. Kelim haddii aad tiraahdo qalin waaye. Kelimim laakiin haddii aad tiraahdo qalinkeyga waaye. Okay. Qaybtii xisaabaadka inoo socday ayaan hadda bilaabanaynaa. 21 21 weeye. 22 22 22 23 23 waaye. 24 24 25 25 waaye. 26 26 26 waaye. 27 27 27 waaye. 26 26 28 29 29 29 30 30 micnaheedu waa 30. 31 micnaheedu waa 31. 32 micnaheedu waa 32. 33 micnaheedu waa 33. 34 micnaheedu waa 34. 35 micnaheedu waa 35. 36 36 micnaheedu waa 36. 37 micnaheedu waa 37. 36 micnaheedu waa 38. 39 micnaheedu waa 39. Kirki micnaheedu waa 40. Kirki micnaheedu waa 40. waad ku mahadsantihiin daawashada fiidiyoana. Fadlan haddaad nagu cusub tahay saaxiib ha naga iloobin inaad subscribe inoo daabato. Fiidiyowga haddaad ka heshay like aad tiraahdo. Intaan casharkan cashar la mid ah dib ugu kulmeyno waxaan idinkaga tegayaa dhammaan asxaabteyda qaali ugu ah sidaa iyo nabadgelyo.